anemia noocyada badan ayuu u kala baxaa waxaan u kala bixin doonaa qaybahan soo socdo midda koowaad waxa weeyaan iron deficiency anemia waa qofka markuu ku dhaco anemia waxaana keenay qofku waxa ku yar iron mise feeraha ayaa ku yar jirkiisa feeraha ayaa ku yar maxaa keeni kara iron deficiency anemia waxa keeni karo deficient iron intake qofka markuu ku yar yahay ironka mise uu cuntooyinka uu cunayo uu ku yar yahay iron mise feerada maadada ironka la yiraahdo ee macdinta ironka marka ay qofka ku yartahay jirkiisa ama cuntooyinka uu cunayo marka ay ku yartahay tusaale vegetarians dadka vegetables ay kaliya cuno aanan cunaynin beerka aanan cunaynin hilibka aanan cunaynin ukunta aanan cunaynin malayga qofka wuxuu ku yigi waa vegetarian wuxuu cunaa qudaarta kaliya waxyaalaha proteinka kala ma cuno qofka wuxuu qatar u galiyaa inuu qaado iron deficiency anemia waxyaalaha kale laga keeni kara iron deficiency anemia waxa kamid ah high iron requirement qofka jirkiisa u baahdo iron tiro badan ama qofka jirkiisa isticmaalaya iron stocks kaydka ironka ee jirka qofka jirkiisa markuu aad u isticmaalo tusaale pregnancy gabadha markay pregnant tahay mise uur leedahay cunuga calooshada ku jiro wuxuu u baahan yahay in dhiig loo sameeyo sidaa darteed ironka isaga waa la isticmaalaya cunuga ayaa la isticmaalaya cunuga ayaa dhiig looga sameynaya waxyaalaha kale oo keeni kara iron deficiency anemia waxa kamid ah raised stomach pH ka caloosha markuu aad u sareeyo tusaale waa basic pH ka caloosha ayaa basic noqday okay waa raised stomach pH ka caloosha markuu aad u sarkaco tusaale maxaa keeni karo use of antacids impairs iron absorption in the stomach markii aad uu qofku isticmaalay antacids waa daawooyinka looga hortago gaaska daawooyinka looga hortago laabjeexa daawooyinka looga hortago ulcerska daawooyinka antacidska aluminum hydroxide tusaale qofka markuu isticmaalo maxaa dhaco waxa badanaya beeska calooshiisa ku jira badanaya kadib haduu caloosha beeskeeda haduu bato ama pH-keeda haduu aad u sarakaco ironka lama nuugi karo unugyada caloosha ironka si fiican uma nuugi karayaan marka sidaa darteed waxa keeni kara raised stomach pH wuxuu keeni karaa in ironka la nuugi waayo kadibna qofku uu qaado iron deficiency anemia waxa kale oo keeni kara iron deficiency anemia blood loss qofkii inuu dhiig baxo qofka haduu dhiig baxa caadiga ah ayaa keeni karo waxyaalaha kale oo keeni kara waxa kamid ah qofka markuu ka dhiig baxo GIT-ga gastrointestinal tract dheefshiidka qofka markuu ka dhiig baxo qofka sidoo dheefshiidka sidoo dhiig bixi kara tusaale peptic ulcers qofka haduu qabo mise boogaha caloosha ka soo baxo qofka haduu qabo gastritis ama chronic gastritis gas haduu qabo calooshu ka dhiigaya marka sidaa darteed qofka peptic ulcers qabana waxa lagu yaqaan ama gastritis qabana waxa lagu yaqaan saxaradiisa waa saxara melanus la yiraahdo waa madow saxara wax madow baa ku jiro marka waa peptic ulcers waxyaalaha keeni karo waxyaalaha kale oo keeni kara iron deficiency waxa kamid ah hemorrhoids baabasiirka qofka baabasiir markuu qabo uu dhiig baxaya marka baabasiirka uu keeni kara iron deficiency anemia waxyaalaha kale oo iron deficiency anemia keeni kara waxa kamid ah hemorrhagia